tooskaaga weligaaba finaas haddana iska sii soco soo adiga meeshii taagan meel heblana dhacankaa kaa tahay labadii meeloodoo waxa weeye aan weydiinayayba de waa midaan ku beegnahayo mid barbarka ka xigto markaasaan waxaan ogaaday Soomaaliya inay isku tilmaam baahayn haddaa meel kale tagtay haddaa ku fadaa baalki tagtidba hadda kadib islaali waan kula talinayaa ma santahay waa sheeko qosol badan ama waxa weeye runtii dhacdo ma aragtay waxa kugu dhacday cajiib ah marka Soomaalidu de waa isku dhaqan waa isku af laakiin haddana waxa ku kala duwan yihiin lahjadii bay ku kala duwan yihiin gobolka hadda ka tagtid gobolkan waxa laga yaabaa gobol kale tagtid xogaa waxyaalo ma aragtay kale inaad ku aragtid marka abwaanay maxaa u haysaa bulshada adigu wallahi bulshada hadda kulankan galabta kadis baan nooga dhigteen abwaankan ku casuubaynay maxaan ku iraahdaa hadda wax aan ma aragtay bulshada usoo diyaarinay oo haatan maxaan ku iraahdaa ma jiraan laakiin team talreeb aan ka tirsanahay maxaan ku waxaas lahaa ayaantan dalmacay wuxuu la maqan yahay wuxuu soo wadaa wax ma aragtay bulshada ay ma aragtay horta riyaaqi doonaan horta waxa weeye waxyaalo badan team talreeb soo wadaan riwaayadii bay soo wadaan maxaan ku iraahdaa xigmado kala gedisan bay soo wadaan mar dadweynuhu waxaan ku yiri fadhiga waa ka kici doonaa inaad hor sheeko dhahaysaa horta fanahsadaas ereyga fanahso markii la yiraahdo maxaa u fahmi lahayd adiga maskaxi ahaan maxaa u fahmi lahayd meel cidlaan la joogi lahayd wariya ilaahay yaqaan war fanaasigaasni horta markii adigu aad ka sheekeynayso waaba yaabayba waxaaba isiri ma taqaanaa fanaasadan horta mid baan kuu sheegayaa markii meel marmar waxa jira moota maskaxda ay in badan shaqayn karin moota ay si degdeg go'aan qaadasho u baahan tahay moota marka meel cidla joogtido oo dhulaada oo qoon joogtido oo soo hayaantay oo marka kugu cusub waxna ka maqan yahay waxa raadinaysaa waqtiga gabalkii sii dhacayo waa dib badan tahay moogta oo waxa ku fakari kadib ma fanahsada aanu markii ciyaar baan boohaystay inuu ku ciyaarayo isleeyahay ninkan waan anigu waxaas dhihi lahaaba u yiraahdo even ma aragtay sida hadda kugu dhacday dunka odaga ay dhihi lahaa waxaan u maleyn lahaaba inuu ma taqaanaa leeyahay carar oo orod oo ma aragtay orod saxaabi marka baaba u qaadan lahaa anu ma qaateen maxaad dhihi lahayd aqliyan hadda dii fanahso anu aqoon li oran lahaa fanahso dhaawac baa iska fiirin lahaa ma dhaawac fanahso ma qof sidii meel dhaawac ka maaragtay maraka ilaalinayo bay noqonaysaa fanahso mooda laakiin Soomaalidu afsamo waa la jada badan tahay anigu niyo horta qisadii ugu la yaabka badnayd aad ka hor baa taraag baan nin wada galan dadkeenan dhulka hooyo jooga maxaan ku iraahdaa dalkeena hooyo jooga waa habal lahjadoodu ha kala duwanaato laakiin waa dad xigmad ka buuxdo waa saqiir iyo kiir wax xigmadaysan yihiin adoo qof maran ma ahan oo waa hore tagay in la xirta kaliya u baahan maahan marka dadka reer Mareykanka dadka qurbaha jira niyo aqligu waa ka guuraa waan jiray haddii aan dadka ku fogaado inkastoo aan adiga cid ha taagin cidna ha gelin waxa samaysan nolosha sheekada kugu dhacday waayo maanta simanka jira maanta wuxuu yahay dadku ka waxa la isla galayaan anu markaa waxaan leeyahay inaad qolo dhiiqada caga u geliso anu markaa waxaan leeyahay qolada reer qurboodka ha iga raali ahaato waxa dhacday ninkii reer qurboodka gaari waa wada raacay gaariga inuu ku cafiyo ma ahan waxa maleena kulligood ku wada waay gaarigi markaan wada raacnay hadda soo moojiday waay wado gaarigi markaan wada raacnay taraag dheer baan wada galnaa taraag markaa rag wada gashaan waa sheekaysanaysaa taariikh baa laga sheekaysanayaa xigmad hore baa laga sheekaysanayaa mahyaal soo qabsanaya magaala ka tagteen magaala u socotaa sax safar baati sax waa la sahrdiyay moogta marka maxaa isku haysan siyaasad baa ma sheeko dhaqan maxaa ka sheekeynaysaa dad taraag ah adiga ama siyaasad markaa isku hayeen ama dhaqan ha isku hayeen ama adigu waa dad sheeka dhex marayso oo sheekaysanaya oo maxaan ku iraahdaa
doodi ma khasab doodi waa dhex maraysaa u fiirso adba ninka waxaa dhacday rag waa sheekaysta marka hore nin kasta xigmadiisa meesha ugu sarreysay ama ugula yaabka badneed buu soo qabsada cabdiga halkaana reer qurboodka ahaa sowna dadka qurbaha jiray caruurteena waa soo caqli baan siinay oo maalintaas leeyahay cabdiga reer qurboodka ma xaqiijin karnaa waay cabdiga reer qurboodka wuxuu soo qaatay maxaan ku yidhahdaa ey baa saan loo xanaaneeyey iyo bisad baa saan loo xanaaneeyay shimbiraha guryaha weyri intii dhaqankiisa aad buu ka bay waardiyey gaalada wuxuu ku soo arkay kaaga sheekeeyey aniga waa yaabanacan leeyahay ninkan 12 maanta eygii bisadii shimbirta ka sheekeynaya maxaan ku yidhahdaa xigmad kale ma arag miyaa rag ismayso arag miyaa maxaan ku idhaahdaa ma eeyo bisad keliyo dhacnaaye marka ninka hawlba waxbaa idin kala raacay anugu de wallahi xitaa uma qarin walaayaa idin kala raacday waxaan ku darsanaya haddaan kaa dhex galo sheekada sax hadda ka hor baa ali nin aan saaxiibanahay baa naagu daayay naag buu la sheekaysan jiray kuwa yar yaroo kale oo markaas soo baxa ciyaalka geesaha xirtay baa naagtii ka dulqaaday naagtii kala wareegay markay kala wareegeen baa waxaa dhacday wuxuu yidhi warniyow intuu yimid wuxuu yidhi ereygaas yidhi aa ku soo xasustay intuu yimid wuxuu warniyow naagtii waxaan dhurwaaye iyo bahal looga sheekeeyo buu yidhi kuwa maradu ka deganayso yaa kuwa maradu kasii deganayso baa waxay uga sheekeynayaan buu yidhi hebel baa caanaya hebel baa tiktokara iyo Michael Jackson baa heestaa soo saaray kuwa uga sheekeynaya marka hadda halkeedii weeye balwad horta ninkaas sida ku soo gabagabeynaya maxaan ku yiraahdaa de maanta sheeko qosol badan xiisa leh bulshadu maaragtay aan rajeynayo in sheekada nooma dhamay hada abwaane sheekada ku dhameeyay ninka uma qarin waxaan ku yirnaa wax ku sheegan ku yiri bisadani eegani waxa ka warramaysid laga xeeb baan ku yiraahdaa xanaaq maxaa dagaal baad ku qaaday dadku meeshu ka yimid iyo matqaana marka hore ismaana wareysan meeshii marka iswareysanay meeshii oo maaragtay uu yiri xaga qurbahan ka yimid waana dareemaysaa oo xitaa lahjadu waa kala nusan tahay af Soomaali anagu dareemadu ba u badanahayo indhaha faraha dadka ka gelinaa moog inda faraka geliska qofka aqoon hadda ka hor baa anoo xaga gaalka ciya ka yimid muduga baan meelahan bariga baan aadam moogtay bariga markaa tagay baa waxaa dhacday tuulaan tagay tuulada markaa tagay waxaa iri anoo degdegsan oo gaar ii taagay waraa nin sadaqad haysta waraa waxa alaab ii dhibaa irmaaqa waxa ka reebo moog so waraa waxa ii dhib markaa iri de waa xanaaq baan noqonaysaa moogta kii cabdiga reer bariga ay tayaabay istaagay si ay fiiriyay arba waa khasamiyaa أنا ما يخص بيساك ودينا وقع عشان حايستو واي مركا برنامج هذا إني كان قبلها وكسو شاك كسو حسست موقع واي هذا كور واحد علي وعلي نسوا قابيو نسوا ميل دحين عمر يا هذا وحوي وسوق قبيسنا إن شاء الله وسوق قبيسنا أبوان هي شكلها إنه وسوق baadiyaha ama dhaqanka baadiyaha ama maaragtay markii miyiga aad joogtid iyo marka laba baa moogtaa hadda ka hor baa waxa dhacday gabar reer baadiye ah baa waxa la sheekaysan jiray nin tubaakada cuna iyo nin aan cunin fiidkii markay tahay tubaakadu waa bahashan qormuun oo niyow magaca leh دانقشي ماشي دانقشي وبهاش توكل رباديها انت بدل عنا رباديها انه رباديو رميالكم ما قاعنا ابو مالين واي وسع gabadha miyiga waad aragtay hadda miyi ina ku soo dhaqanta u maleynaya marka gabadha markii reemiyiga ah aad u timaadid oo la fariisatid dream baa la dhigtaa meel baa la wada fariistaa halkaas wiilkii gabadhu ku haasowahooda ku dhameystaan moogta cabdigan tubaakada cuna markii kale ugu yimaado oo kan tubaakada cuna ku soo horeeya gabadha markii la isku qabsado meesha la isku maandhaafo hadalku markuu wareego ka tubaakaysta hadalku ku wareego intuu garwaaxayd saa garwaaxay soo bacjeebka kala soo baxo buu intuu bacda furayo hadalku ninka oran la u fikraa moogtay maya aan ka dhaxgale gabadha ma
labaduba ma hal mar bay u wada imaanayaan mise ninba ku soo kala horeeyaan de waayo de gabadha miyiga sida gabdhaha miyiga sida ah waa la isku qabsanayaa waa lagu soo kala horeynaya ninba marka asoo ninka la jooga baa ninkii kale u imaanaya saxa marka wuxuu leeyahay de barnaamijka wadaan iga gabalgelisaan baa rabaa cabdigi waxa dhacday ninka tuwaakaystaha ah cabdigii tuwaakada cuni jiray baa ku soo horeeyay sax waxa dhacday wuu yaab kii kale ugu yimid wuxuu yiri ninkan intuu bacda furayo wuxuu ku orlaa xasuustaa baashi maxaa midaan sheeg marka xirxirka maxaa liyaa taag marka la xirxiro waa ka wali ma gadanay meel uu gadayana wali ismaan arag war baashan iyo bacaha ku xirxiraan moogta bahal bac ku jidho oo ma aqaani magaceeda hadda iga lunsan yahay ma wacna kuwa tubaakada cuna ma weydiina waa ku khasbanahay barnaamijku meesha waa marayaa waxa dhacday cabdigii tubaakada aan cuni jirin tiibu soo qaato bahal iska weynaatay soo qaato wuxuu yiri gabadh inta la hor tagtid horta ku hor cun ilaa ninkaan garabkaasi saameyn walba tuwaakaystahay cabdigii baashi furay marka xagga ninkan tubaakada cunay gabadh xageed u janjeedhaamiya intuu bacda furayo show wuxuu oran la xasuustaa waa ku ridaa waa iska tagaa kani ninka beeshu ka dalan dalayaa qoftiibu ka dhaxlaa ama ka kaxayo ma ka ciirsada aad weyn sax waay cabdigii waxa dhacday gabadhii intuu galabtii dambe iyadoo ari la joogto meel ari rogayso de waad aragtay gabdhaha galabtii waa la raadiyaa moogta dhaqanka miyiga waay marka buu inta soo raadiyo u yimid oo cabaar u sheekeynayo wuxuu sii horta bal cabdiga baashto waakada ku raacday waakada isku tus ciil ya carad darteed wuxuu soo qaatay waakadii wuu soo kata marka baa dhacday baashi markuu cunay baashan badanaa dadka cunaa markay ka sheekeynayaan ama dadka soo maray